bal markana ciyaarihii haddii aynu eegno quarter finalka koobka qaramada Afrika ayaa Brito Arbaca bilaabanaya 8 kooxood ayaa isugu soo haray haddaba si toos ah aynu u tagno magaalada Qaahira oo qadka si toos ah ugu jiro Maxamed Cabdi Xaraare oo ka soo waramayay maalmahanba ciyaaraha Afrika Maxamed farxan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay sida aad u sheegtay koobka qaramada Afrika waxa uu ku sii dhow yahay inuu dhamaado 9 maalmood oo kaliya ayaa ka harsan marka ay ciyaarahani dhamaanayaan haddaba ma la sii saadaalin karaa cidda koobkaas hanan doonta waxa stuudiyaha ila jooga Cabdifataax Xasan Dhoore oo arrimaha ciyaaraha ka faalooda Cabdifataax soo dhawow ciyaarahan markay bilaabanayeen stuudiyahan ayaan isku aragnay waxaan wax iska weydiinay saadaasha koobkan ayaa qaadi kara haddaba 4 isbuuc ee la soo dhaafay wax weyn ma isbedeleen oo saadaasha aanu sameynay ka duwan ama lamid ah maxamed horta wax badan way isbedeleen waxna isma bedelin yani sida hadda kooxo badan oo saadaalina sidii ku socdaan sida Senegal iyo Algeria kale iyo laakiin kooxo badan oo la moodayay inay meel intaan ka fog gaarayaan ayaa meel dhow ku haray 16 kale ku haray sida Masar oo kale waxay ku hartay 16 Cameroon Ghana wadamo badan oo islaha ilaa meel fog ay koobka gaarayaan ayaa waxay ku hareen meel aan la filayn waa gartay waxaan wax iska weydiinay inay mucjisooyin dhici karaan koobkan qaramada Afrika ee Masar lagu qabanayo sanadkan wax mucjisooyin oo aad la yaabtay ama aan la filayn oo dhacay intaad ciyaaraha daawanaysay 4 isbuuc la soo dhaafay horta mucjisada ugu weyn oo dadka ilaa hadda ay ka sheekeynayaan waa wadanka Madagascar oo markiis ugu horeeyay koobkan ka qayb gala waliba si lama filaan groupka stageska kaalintooda ugu soo baxay oo Nigeria ka soo badiyay hadana 16 yimid 16 markuu yimid mucjisa ee dadka dhan wada fiirinayaan maanta Madagascar ay 16 ka tagtay laakiin waxay ku sii dartay inay Congo ka badisay oo ah wadanka Zaire hore loo dhihi jiray oo 2 jeer koobkan ku guuleystay oo 8 ay maanta ay joogto wadankoodii dhan ay wada faraxsiin oo adigu waa aragtay 500 oo taageero ay u yimaadeen xitaa madaxweynahooda joogay marka Madagascar waa sheekada kan ayada iskala umaleyna hadda sidoo kale kooxa Benin oo kale oo ayadana aanan koobab horgan ku guuleysan ciyaarahan aanan ciyaar badan dalkeeda lagu aqoon waxay joogtaa Senegal bay la ciyaaraysaa sidoo kale Tunisia oo kale haddaba ma 5 kooxood oo ka tirsan 8 kooxood oo soo haray koobab ay hore u soo qaadeen marka laga reebo Madagascar iyo Benin arintaas ma la oran karaa ciyaarahan sidoo hore ku sii socdaan oo dadka la yaqiinay un baa qaadi doona way adagtaa in la yiraahdo kooxihii yaryara sanadkan waxay la soo baxeen koojaj waxa wata scenario badan isku diyaariyay oo dadku waxay filanayeen wax aan ahayn garoonkii soo bandhigay Benin oo kale waa wadan 3 bareejo soo galay Benin iyo Tunisia ilaa ay hadda ma aysan badin 8 fadhiyaan yani mucjisooyinkan oo kale dhici kara Benin 3 bareejo groupka soo gashay haddana waxay bareejo la gashay Morocco oo penalties uga badisay because ciyaarta penalties ku dhamaatay bareejo la xisaabiya Tunisia sidoo kale waa Benin iyo Tunisia iyo qaabkii ku soo baxeen ay meeshan ku yimaadeen iyo kooxaha ay soo reebeen lama filanin inay sameynayaan saasad Benin oo kale Morocco ay soo reebtay Morocco ah kooxii u sharaxna inay koobka qaadaan Tunisia sidoo kale Ghana ay soo reebtay ayadana u sharaxna inay koobka qaado soo marka saadaashi waxaan u maleynayaa wali way jirtaa laakiin sidii hore inay soo waxa la oran karaa kooxihii waaweynaaba hoos u dhac ku yimi ama se kooxaha yaryarba iyagu dardar cusub la soo baxay labadaba waa la dhihi karaa oo kooxahan yaryar waa koox tabartooda yaqaan markay yimaadaan ma furan garoonka waxay sameeyaan difaac timekooda ay qaataan way sabraan ilaa meesha ugu dambeysay ciyaarta gaarsiiyaan hadda Benin oo kale group stageska 2 game waxba lagama dhalin hal game 2 gool laga dhaliyay bareejo galeen 2-2 gameki Morocco inkastoo lucky yar uu jiray nasiib uu jiray because Morocco rigoor ay waxay dayacday daqiiqadii 9aad laakiin nasiibku kubaddu ku jira kooxahan waxa la dhihi karaa waa kooxo ogaaday si u badin karaan oo tabartooda ciyaaray waqti hadda 8 koox oo baa soo harsan yaa isleedahay koobkan way qaadi karaan 9 maalmood kadib oo koobku way ruuxi doonaan isleedahay horta saadaashu waa iska sideeda mar walba dadku waxay saadaaliyaan kooxaha weyn inay wax qaadaan Senegal oo kale hadda Senegal Benin la ciyaaraysa markay soo baxdana waxay sugaysaa hadii soo baxdo ee Benin ka soo badiso Madagascar iyo Tunisia ee la ciyaaraysa soo afartaas waxa way hal ayaa finalka tagay soo waxa moodaa Senegal wadadeedu inay wali sahlan tahay oo la dhihi karo wali Senegal waxa laga yaabaa inay finalka tagto laakiin Nigeria iyo South Africa waa laba koox oo midna 3 jeer koobka qaaday South Africa na horey 96 mar ay qaaday
Algeria sidoo kale halay qaaday Ivory Coast laba qaaday waana wadamo adag squad ahaan markii la hoo dad ciyaartoy fiican haysta waay afartan koox inkastoo dadku ay wada leeyihiin Algeria oo ah naadiga kaliya ilaa hadda gool aan laga dhalin oo 9 gool dhaliyay oo kubadda ay ciyaarayaan kubadda ilaa hadda ugu fiican koobka ah laakiin wali lama saadaalin karo because Benin iyo Tunisia waxay sameeyeen boo aragnay waxa u muuqataa ina ama Algeria ama Senegal ina u saadaalinayso laakiin su'aal degdeg ah ku weydiiyo Madagascar ma laga yaabaa inay koobkan mucjiso ka dhaliso oo la yaabo maxaa diiday because sideedaba mucjiso ku timid mucjisada inay socoto maxaa diiday Maxamed aad iyo aad u waasata hadii aanu ku soo gabagabeeyno Senegal iyo Algeria miyaad filaysaa inay isugu yimaadaan aniga labadaas aan isleeyahay laakiin wax kasta way dhici karaan laakiin se waxa ogtahay in Senegal looga badiyo group stages-ka Algeria laakiin group stages-ka iyo knockout stages-ka laba xisaabada kala yihiin oo isku mid maahan yani dadkii hadda Benin iyo Tunisia oo kale group stages ay ahaayeen iyo knockout stages ay ahaayeen waa farqi weyn oo kala dhaxay soo marka group stages-ka ciyaaraha la ciyaarayo iyo knockout stages iskama lahan aad iyo aad umahadsan tahay Cabdi Fataax Xasan Dhoore Farxan adigan kugu soo celinaya waanu arki doonaa 9 maalmood kadib halkay ciyaarahan ku dambeeyaan aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamed Xaraare oo si toos ah nooga soo waramaya Qaahira iyo koobka qaramada Afrika